kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka waan maanta uga hadli doonaa waxtarka caafimaadka ay u leedahay timirtu. Geedka timirta waxaa la beerayay waqti aad u fog, ugu dhawaana 6,000 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Midhaha ka soo go'a geedkan timirta ayaa kan ugu macaan, waxaana jira in geedka timirtu yahay mid qaybo badan leh, taasoo keentay kala duwanaanshaha noocyada timirta ee la isticmaalo. Waxaana geedkan lagu cunaa sidiisa, waana mid ay faa'iidooyinkiisa caafimaad isku mid yihiin hadduu qalalan yahay iyo hadduu qoyan yahay labadaba. Nafaqo ahaan waxyaabaha ku jira timirta waxaa ka mid ah fiber, potassium iyo copper ayaa qaar ka mid ah waxyaabaha nafaqo ahaan ku jira timirta oo mid kastaana leeyahay faa'iidooyinkiisa gaarka ah. Sida fiber oo ka hortag u ah calool istaagga, potassium oo u wanaagsan dhiig wareegga kana hortagta xanuunada sida faaliga, iyo copper oo wax weyn ka tarta habsamo socodka shaqada isgoysyada iyo ka hortagga gabowga. Waxaana jira faa'iidooyin kale oo badan. Kor u qaadida caafimaadka dheefshiidka. Maadada fiber oo ay timirtu qani ku tahay ayaa muhiim u ah kor u qaadida caafimaadka dheefshiidka iyo hoos u dhigidda calool istaagga, waxaana ka hortagtaa xanuunada ku dhaca dheef-mareenka sida babaasiirta. Waxaana joogtaysaa shaqada mindhicirka, gaar ahaan mindhicirka weyn oo ah kan ugu badan sababana kansarka. Timirtu waxay ka mid tahay dawooyinka sida fudud aad ugu isticmaali karto gurigaaga. Caafimaadka wadnaha. Fiberta ku jirta marka laga yimaado timirta waxay sidoo kale ay wax ka tartaa caafimaadka wadnaha iyo dhiig wareegga. Waxay yareysaa bararka jirka. Waxay sidoo kale ay ka hortag u tahay xanuunada dhiig karka iyo faaliga, isgoysyada iyo cudurrada ilowga asaasiga. Caawinta hooyada uurka leh. Cilmi baaris la sameeyay ayaa iftiimisay in cunista timirtu ka caawiso haweenka uurka leh dhalmada iyadoo aan la adeegsanin daawooyinka dhalmada. Kor u qaadida caafimaadka maskaxda. Timirta waxaa laga helaa maadada vitamin B6 oo faa'iido u ah kasmada iyo kobaca garaadka ee qofka. Faa'iidooyinka kale caafimaad ku jira timirta waxaa ka mid ah waxa ay wax ka tartaa ama hoos u dhigtaa miisaanka ama cayilka buurnida xad-dhaafka ah. Waxay daawo u tahay shubanka. Waxay daweysaa ama ka hortag u tahay dhiig yaraanta birta. Waxaa sidoo kale ay faa'iido u leedahay arrimaha xagga jismiga.